علنيا qabashada bandhigan muhiimka u ah nolosha dadka oo ay inoo suurtageliyeen in si joogto ah loo qabto sanad walba si gaar ah waxaan ugu mahadcelinayaa wasaaradda warfaafinta agaasimaha guud wasiir ku-xigeenka iyo wasiir Caydiid runtii aad baan uga mahadcelinayaa joogteynta iyo kartida iyo hawlkarnimada ay sameeyeen si hawshan muhiimka ay inoo qabsoonto inoogu qabsoonto sharaf weyn ayay tahay inaan meesha ka soo qayb galo anigoo ku hadlaya magaca shirkadda Golis Telecom oo runtii ah tiir ka mid ah tiirarka aasaaska u ah tiknoolajiyadda Puntland ama la dhihi karo waa tiirkii koowaad ee tiknoolajiyadda Puntland aasaaska u ahaa runtii tiknoolajiyadda si fudud waxaan ugu fasiri karnaa waa wax kasta oo noloshana inoo fududeeya tiknoolajiyaddu qaybo badan bay leedahay annaga qaybta aan kaga jirno oo telecomka runtii meel aad u sarreysa oo aad u fiican buu marayaa markii loo fiiriyo dunidu meesha ay hadda marayso tiknoolajiyaddu hadda support function ma aha marka loo fiiriyo nolosha meesha ay kaga jirto waa aasaasi bay u tahay in bini aadamku uu noolaado oo si fiican u noolaado telecomku runtii wuxuu muhiim u yahay sida ay muhiimka u tahay biyaha iyo korontada wadooyinka iyo dekeduhu sida ay muhiim inoo ku yihiin baa infrastructure-ka telecomku muhiim ugu yahay bulshada runtii Golis Telecom marka la fiiriyo Golis ma aha shirkad timi xilli wadanku uu fiican yahay ma aha shirkad timi xilli lacaga badan aan haysanay oo maaragtay tiknoolajiyadooda hore u socotay runtii Golis waxay la dhalatay oo ay la bilaabatay dawladda Puntland waxay si step by step ugu kortay sida Puntland telecommunication-keedu u koraayay bay Golis la kortay halka aynu hadda joognana waxay u tahay tiirka koowaad oo halka soo gaarsiiyay communication-ka Puntland runtii waxay maalgelin samaysay Golis xilli ay adag tahay in lagu soo dhiirado in la maalgeliyo si gaar ah sector-kaas loo arkayo sector khiyaal ah in la maalgeliyo waxay ku dhiiradeen inay dadka noloshooda wax ka bedelaan oo ay u dhaqaajiyaan tiknoolajiyadda casriga ah waxa ugu horeeya aan ka xusi karaa inay Golis tahay shirkaddii ugu horeysay ee mobile keenta wadankeena si furan loo helo mobile-ka waxa laga yaabaa hadda inaynaan suuraysan karin mobile-ku hadduu ina ka maqan yahay maaragtay sidee noloshu ahaan lahayd runtii xilli waa jirtay laakiin noloshu sidaan way ka adkayd dadku inay is helaan baa aad u adkayd si aan ugu fasirno dhalinyarada tusaalaha ugu fiican waxa weeye oo loo soo qaadan karo haasaawaha aniga qolada iga horeysay waxa jirtay ka sheekayn jirtay in dhagax guriga lagu tuuro si loo ogaado in aaga lagu jiro annaga waxaan soo gaaray stage-keygii line-kii intaa guriga ka soo hadashid inaad tiraahdo waa soo socdaa meel 30 daqiiqo u jirta inaad soo lugayso kiiskan dhan ama qorshahaas dhanna uu ku fashilmo in maamadu ridda soo istaagto marka meesha hadda aynu maraynana waa arki karnaa laakiin mobile-ku halkaasuu ka keenay communication-keena iyo xiriirkeena waxaa jira internet-kii oo ku soo xigay runtii inaan caalamka ku xiranno wuxuu xalliyey waxaa laga yaabaa inay awal is heli jireen dadka in kooban oo ka mida oo maaragtay inta wada degan inay is heli jireen laakiin wuxuu xalliyey in communication-kii uu noqdo worldwide oo maantay adduunka meesha uu joogo uu qof kala xiriiri karo internet-ku wuxuu ka bilowday 50 MB iyo wax ka yar haddana waxaan marinaynaa inaanu shirkad iyo hay'ado ka gadi karno 20 GB ilaa 30 GB Golis waa shirkaddii ugu horeysay oo ku dhiiratay inay dalka fiber maalgeliso runtii aad buu markaa muhiim ugu ahaa dalka laakiin nafhurnimo oo kale bay u ekeyd marka la fiiriyo xilligii la maalgelinayay fiberku wuxuu inoo sahlay in communication-keeni internet-keeni uu la mid noqdo kii caalamka haddana uu gaarsiisan yahay inuu diyaar yahay adeegii 4G-ga
runtii waxyaabaha aadka waaweyn oo golis ku tallaabsatay waxaa ka mid ah in financial transformation lagu sameeyo oo meeshii aynu bangiyada oo kala go' ku jiray darteed in dadkii laga caawiyo inay mobile money isticmaalaan runtii mobile moneygu wuxuu ahaa adeeg game changer oo dadka noloshoodii wax badan u fududeeyey wasiirku hadaaye wuxuu yidhi waa la kumantikarayn karaa warkayga mobile moneygu runtii annaga wuxuu nagu hayaa mas-uuliyadda aysan adeegyada kale nagu hayn adeegaas waa free ma iibino laakiin wuxuu nooga xanuun badan yahay adeegyada aan iibino haddii khalkhal ku yimaado isaga inta badan kuma yimaado waxaanu hanti iyo waqti ku bixinnaa inaan bulshadu aysan walwal ka dareemin adeegaas runtii mas-uuliyad weyn buu nagu hayaa gacan ammaana iyo juhdi iyo dadaal baan ku bixinnaa inaan ilaalino hantida dadka runtii bulshada iyo qaabka aan ula falgalno runtii wax badan baan bulshada ka horumarkeeda ka qayb qaadanaa waxbarashada markaan u nimaano runtii wasaaradahoo dhan waa la shaqaynaa sektorka waxbarashada runtii wax badan oo waxaa jira aanu kala shaqayno waxa ugu muhiimsan oo hadda aan soo wadnaa in waxbarashada wasiirku waa iga boobay laakiin inaanu IBTV-gii oo diyaar ah inaanu ku diyaarinno wasaaraddana kala shaqayno in silbiska la duubo oo qofku gurigiisa TV-giisa uu casharkuu rabo ka beddelan karo waxaan soo wadnaa maadaama teknolojiyadda aan ku jirno inaan samayno sida shirkadaha caalamiga ah golis certificate inaan samayno oo certificate jaamacaduhuna nagala shaqeeyaan silbiskeeda aanu maalgelinay si adag iyo laabkeeda iyo kulliba aan ka taxadarnay oo soo saaraysa arday teknolojiyadda hadda caalamka joogta la jaan qaadaysa runtii dhalinyarada iyo bulshada intooda kaleba adeegyadayada waxaan u daynayaa prestationka aan soo jeedsanayno si mugle baan uga qayb qaadanaa dowladda wada shaqaynteeda wasiirka aad baan uga mahad celinayaa wada shaqayn dhow baan leenahay waxaa laga yaabaa haddeer annagu ka telekom ahaan inaan ku fakeraynaba guryahan waaweyn iyo intaan iska dayno inaan si virtuala u shaqaysano adduunka hadda nimaan kula joogin baa lacag kaa qaata oo xafiisna ku lahayn shaqaalena uga shaqayn marka inaan halkaas u gudubnaan rabnaa insha allahu ugu dambayn xaggee u soconnaa baahiyaha la xusay runtii qaybo badan oo ka mid a hadda waa noo diyaarsan yihiin waxaa ka mid a data center inuu diyaarsan yahay weyn oo golis leedahay ay ku martigelinayso dadkana u haynayso xogta iyo maaragtay iyadoo lagaga maarmayo korontadii iyo shaqaalihii iyo spacekii qofkaa kaga bixi lahaa inaan u maalgelinno oo data center diyaarsan oo standardka caalamiga waafaqsan inaanu keenno runtii waxaa diyaar ah adeegyadii IoT-gii oo in la automate garayn karo deegaanadeenna guryaheenna baabuurteenna kulliba qofku uu intuu la automate gareeyo uu ka bilaabi karo maaragtay xilliguu rabo uu adeegsan karo xilliguu rabo iska damin karo xilliguu rabo uu xiri karo runtii waxaan rabaa dowladda Puntland inaan uga mahad celiyo wada shaqaynta ay bahdayda telecom kala leedahay waxaan rabaa inaan ku booriyo inay si dhow inta uga sii dhawaato runtii maalgelinta ay telecom ku sameeyeen oo infrastructure ku sameeyeen waa maalgelin huge u baahan dowlad ilaalisa dhibaatooyin yar baa jira oo mararka qaarkood qabsada waxaan rabnaa inay dowladdu maaragtay hoos u fiiriso arrintaa naga xaliso ugu dambayn waxaan kusoo gunaanadayaa golis waxay diyaar u tahay sidii ay bilowga uga ahayd hayaanka teknolojiyadda Puntland inay haddana meesha ka sii wado inay diyaar u tahay sanad walba inay maalgeliso teknolojiyad cusub oo dalka iyo dadkaba wax ku soo kordhinaysa waxaan leenahay inagoo wada jirna baa bedeli karna teknolojiyadda Puntland dhankaygana diyaar baan u nahay aad baa u mahadsantihiin